rag hubeysan ayaa goordhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Gorgor waxayna halkaasi ka gaxeysteen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka. kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay inay ahaayeen xoogga ahlu sunna waxaana dilka kadib ay qaateen gaari cabdibile ah oo goobta yaalay. wararka ayaa intaasi ku daraya in dilka kadib gaariga ay ula dhaqaaqeen dhinaca deegaanka Bohol waxayna wararku intaasi ay ku darayaan in Dhuusamareeb uu ka socdo qaabkii gaarigaasi loo soo celin lahaa. kooxda dilka geysatay ayaa la tilmaamay inay gaarayaan 5 qof waxayna bartamaha Dhuusamareeb dilka kadib ay ka kaxeysteen gaariga waxaana halkaasi soo dhoobtay sida wararku ay tilmaamayaan ciidamo ka tirsan dawladda. ciidamada ammaanka oo ka tirsan dawladda iyo kuwa Galmudug ayaa wada baaritaano waxayna ay xireen goobta uu dilka ka dhacay. dhawaan ay ahayd markii ciidamo ka tirsan ahlu sunna ay xilli habeen ah ay weerareen saldhigga Gurceel halkaas oo ay kala baxeen ciidamo ugu xirnaa. duulaanka ahlu sunna ee Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa sii xoogeysanaya waxaana warar soo baxay muddooyinkii dambe ay sheegayaan in halkaasi Bohol uu ka socdo qabanqaabada kooxdaasi ay ku doonayso inay ku qabsadaan midood magaalooyinka Dhuusamareeb ama Gurceel.